soo dhawaada khiyaarta nala socota meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa 19 maarso sanadka 2026 caawa dalkii qadar ahaa ee diblomaasiyadda ku wanaagsanaa waxbaa helay dalka Iiraan ciidamadiisa ilaalada kacaanka gantaal kasta oo ay tuurayaan waxa uu haleelayaa goob istiraatiiji ah oo dunida oo dhan mar kaliya madaxa gacmaha la saarto magaalo ku wanaagsanayd ganacsiga warshadaha iyo sidoo kale wax soo saarka shidaalka oo qadar ku taala ayaa caawa ololaysa taas oo ay ka dambeeyeen weerar lagu tilmaamay argosi oo dawladda Iiraan ay ku dhaqaaqeen in ay sameeyaan dawladda qadarna waxa ay bilowday dagaal diblomaasiyadeed oo laga baqdin qabo in dalalka qaliijka uu ku soo jeedo dagaalka gobolka bariga dhexe in dhinaca Mareykanka ay ka soo galaan oo dawladda Iiraan ay la kulanto mid kamida dagaaladii ugu adkaa garoonka Ben Gurion ee Israel ee Tel Aviv ku yaalana caawa waa gubanaya oo 3 diyaaradood ayuu dab qabsaday kadib markii gantaal cruiser lagu dhuftay garoonkaasi nidaamyada difaaca hawada Israel ayaa lagu soo waramayaa in ay shaqeeyeen dawladaha Carabta waxay si isku mid ah iyo luqad iyo lahjad midaysan ku weerarayaan dawladda Iiraan Mujtaba Ali Khamenei waxa uu leeyahay wali la isma gaarin oo saaxiibada Mareykanku iyana waa cataabi doonaan inagii haddii aan ilmeynay nin kasta iyo hogaamiye kasta oo Carbeed ama gobolka Mareykanka la safan isna ilmada ayaa dhabankiisa ka shubmi doonta maadaama dawladda Iiraan ay martigelisay mid kamid ah dagaalkii lagu tilmaami karo kii masiibada ee bariga dhexe ka dhacay isla wararkaasi haddii aan sii eego xiisadda gobolka bariga dhexe ayaa u muuqanaysa in aanay sahlanayn Trump go'aamo culculus ayuu qaadanayaa caawa waxaana laga yaabaa sida warbaahinta Mareykanku ay qorayaan weerar lagu tilmaamo argosi ah inuu ku qaado xarumaha tamarta iyo shidaalka ee dawladda Iiraan Israel kursiga ayay si dangiga ugu jeefsaday ra'iisul wasaare Netanyahu oo hadda u arka dagaalka meeshii uu rabay in uu gaaray macada gobolka bariga dhexe dagaalkiisa inuu soo gabagaboobi doono weerarka mucjisooyinka lagu tilmaamay muxuu yahay sirdoonka Israel ee Iiraan xaqiiqo mise boonboonin maqaal gaar ah oo qoray telefishinka Al Jazeera ayaa sidoo kale kugula wadaag caawa dalka Qatar weerar ayaa lagu qaaday magaalada la yiraahdo Ras Laffan halkaasi oo ah magaalo istiraatiiji ah oo lahayd warshado si weyn u shaqeeya iyo kaydad shidaal halkaas caawa waa gubanaysaa gawaarida gurmadka degdega ah iyo dabdamiyaasha ayaa halkaasi ku sugan ujeedada waxay tahay in la badbaadiyo hantida Qatar ee halkaasi taala iyo si arintani aysan ugu sii faafin dabka inuu meelo kale oo hor la sii gaaro waa dagaal istiraatiiji ah sida uu hadda wax u socdaan gobolka bariga dhexe Iiraanna waxay iminka u muuqataa hanjabaadihii muddooyinkii la soo dhaafay ay jeedinaysay in hadda la gaaray xilliga ay ficil u bedeli lahayd dawladda Qatar waxay leedahay waxaan si kulul u cambaareynaa weerarka ka dhanka ah madax banaanideena iyo waliba beegsiga warshadaha Ras Laffan oo si weyn loo weeraray caawa halkaasi oo kaydka shidaalka ee wadanka Qatar uu yaalay dawladdaasi waxay u aragtaa madax banaanideeda in si weyn loogu soo xadgudbay dawladda Iiraanna ay ku jeedayso dagaal aysan ahayn dawladaha qaliijka inay galaan waxaana dawladda Qatar ay leedahay tillaabooyinkan lama qaadan karo wasaaradda amuraha dibadda ee Qatar ayaa dhambaal xasaasi ah soo saarta waxaana ay leedahay weerarka waxa uu sababay dab iyo burbur hantiyadeed oo baaxad leh inkastoo aysan jirin wax khasaare naf ah oo la xaqiijiyay ilaa hadda sidoo kale shirkadda Qatar Energy ayaa xaqiijisay in magaalada Ras Laffan lagu weeraray gantaalo isla markaana loo diray kooxo gurmada oo degdeg ah halkaasina ujeedadu ay tahay bal in la samata bixiyo dadka halkaasi ku sugan iyo waliba badbaadada hantida qaranku uu leeyahay caawa ololaysa 3 ujeedo ayay ku tilmaantay dawladda Qatar weerarka lagu hayo Qatar waxay si toos ah u tilmaantay weerarkan inuu ka dhan yahay amniga wadankeeda inay tahay tilaabo horinaysa xiisadda gobolka ka taagan iyo in ay tahay mid lagu beegsanayo goobaha rayidka iyo tamarta ee dawladdaasi lamana qaado kara ayay yiraahdeen
weerarka waxaa loo adeegsaday gantaalo waxaana sidoo kale dhacaya baa la leeyahay seerida digniinta meelo ka mid a dalka oo weli laga baqanayo in gantaaluhu ay ku sii dhacaan dowladaha Sacuudi Arabiya Bahrain Kuwait dalkan la yiraahdo Oman ayaa sidoo kale heegan galay markii ay tilaabooyinkan dhaceen dowladda Oman ayaa soo saartay warkii ugu gobsanaa ee dhinaca diblomaasiyadda waxay leedahay waxa dhacaya lama qaadan karo laakiin mas'uuliyadda waa inay cid yeelato Iran oo kaliya in la iska dhaliilo maahee shidaalka ma fiicno kaydka ma wanaagsano wixii maanta ka dhacay wadanka la yiraahdo Iran ee lagu weeraray kaydkeeda shidaalka ciddii samaysa mas'uuliyaddan iska leh waa in lala xisaabtamo dowladda Oman ayaa sidaasi goor dhowr ay soo saartay lahjad lagu qoray ee u dhignay dalka Masar General Sisi iyo qasriga al-Ittihadiya warbay soo saareen waxay leeyihiin muddan lahayn carabta amnigooda qowmiga waa inay ka fakaraan si kastaba waxa qadar ku dhacaya waan ka xunnahay waan garab taaganahay Sacuudiga in kastoo ay tilmaameen al-Qaraj iyo Riyadh maanta inay wax ka dhaceen haddana waxay leeyihiin keebla Euro ayaa nahay waan ka soo horjeednaa waxa ka dhacay qadar sidoo kalena waanu ka degaynaa waxa qadar ku dhacay in dalal kale oo carbeed ay ku dhacaan dowladda qadar weerar diblomaasiyadeed oo adag ayay qaaday iyadoo tilaabooyin degdeg ah oo falcelina samaysay waxay warqad ay ku qornaayeen laba mas'uul oo amniga iyo militariga u qaabilsan safaaradda Doha ee Iran ay gacanta ka galiyeen danjire Ali Salah Abadi kaasoo lagu yiri labadan mas'uul waa in muddo 24 saac gudahooda si degdeg ay uga baxaan talaabooyinka waxay ku eedeeyeen Iran in ay si ka baxsan daris wanaaga u dhaqmayso oo 5 gantaalo balistiga magaaladaasi ay caawa ku duqeeyeen afar la qabtay mid ka midana mushkiladda uu geystay ay aad u balaarantaa balka waran hal gantaal ee qadar qeratay ayaa caawa sidan u bedelaya mashadkii guud ee adduunka ama aragtidii guud ee laga qabay gobolka bariga dhexe haddii 3 ama 4 ka mid ay magaaladaasi ku dhici lahaayeen waa ka sii badnaan lahayd qasaaraha ay geysan lahaayeen oo runtii aad u xoogan haddii aan sii eego wararka kale garoonka Ben Gurion caawa isna waa gubanaya Tel Aviv buu ku yaalaa garoonkan 3 diyaaradood ayaa hadda dab u haystaa oo Israel garoonkeeda yaalay kadib markii noocyada cruise-ka ah ee gantaalo ah ay ku dhaceen garoonkaasi ama madaarkaasi waxaana la sheegayaa in ciidamada nabadgelyada Israel ay isku dayaan in la badbaadiyo diyaaradahaasi iyo dabkooda goodintii Mujtaba Khamenei waxay ka dhigan tahay caawa sidii la rabay inay u dhaqan galayso waxaa burburay guryo xoogan gudaha Israel gaar ahaan xaafadda loo yaqaano Radda Tikfa halka la yiraahdo waxaa sidoo kale la sheegayaa dhaawac culus iyo dab xoog leh inuu halkaasi runtii ka dhashay caawa muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya magaaladii oo guud ahaanba isbedeshay ee nolol argagax leh oo meel walba ka taagan sida gobolka bariga dhexe caawa xiisadiisu ay u muuqato Trump waxa uu leeyahay saaxiibada oo kaliya caawa waxa balanbali doona ma noqon doonaan waxay u egtahay in uu jawaab ka bixin doono waxa ku dhacay Qatar iyo dowladaha kale carbeed haysta iyo Israel intaba wargeyska The Wall Street Journal ee ka soo baxa Mareykanku waxa uu leeyahay Trump waxa laga yaabaa inuu isku diyaariyo weerar kale oo lagu qaado xarumaha tamarta ee wadanka Qatar dagaalka istiraatiijiyadda militariga iyo madaxdii la beegsanaya waa ka gudbaya waxaana uu hadda noqonayaa in la garaaco goobaha tamarta ee rayidka ah tan muddo ayaa laga degayay marinka Hormuz baa laga degayay in xaaladiisu xirnaato wadanka Iran in la weeraro xarumahooda tamarta laga degayay Israel maanta dagaalkaasi furtay caawana wadamadii carabta hurdo uma taala oo Sacuudina aramka iyo caalasha shidaalka ay ilaalinaysaa Kuwait waa sidoo kale Bahrain xaaladeedu ma fududa Oman waxay leedahay waxa soo socda wax la saadaalin kara maaha halka wadamada Jordan iyo dalal kalena ay u muuqato inay aad u baqayaan Imaaraadka markii ugu horeysay waxa uu cambaariyay Israel waxa uu leeyahay waxa Iran lagu sameeyay innagana waa nagu dhacayaan fadlan naga joojiya marka carabtii xaqiiqadii rasmiga ahayd ay caawa wajahayaan oo xiisadoodu ma aha mid si sahal loo saadaalin karo Trumpna waxay u egtahay baa la leeyahay in uu aarsan doono oo Qatar wixii ku dhacay aanu ka seexan doonin
The Wall Street Journal ayaa warkan qoraya. Telefishinka Al Jazeera warbixin taxliil ayuu ka qorayaa mucjisooyinka sirdoonka ee Iran ma xaqiiqad dhaba mase bomboonin laga badbadiyay. Haddaba aan gudaha u galno warbixinta telefishinka. Waxa uu leeyahay warbixintan falanqaynta ee la daabacay 19 Maarso 2026 ayaa tilmaamaysa taariikh iyo sidoo kale sida loo arka awoodda sirdoonka Mossad ee gudaha Iran. Waxa su'aal la geliyay in howlgalladu ay dhab ahaantii yihiin mucjisooyin ama inay ku dhisan yihiin baa layidhi arrimo fudud oo gudaha ah. Haddaba maxaa jira dilka Khamenei oo horta su'aali ay ka dhalatay sidee uga dhalatay? waxay tusaale loo soo qaatay warbixinta weerarada lagu dilay hogaamiyaha sare ee Iran kaasi oo la sheegay in uu ka dhacay Tehran isagoo shir kula jiray saraakiil sare. inkasta oo warbaahinta reer galbeedka ee The Financial Times uu sheegay in kormeer sirdoon oo saacado qaatay oo sanado badan socday arrintaasi lagu sameeyay. waxaa sidoo kale la jabsaday nidaamyada kaamirooyinka iyo xogo aruurin aad muhiim u ahayd oo dowladda Iran laga sameeyo gudaheeda. haddana falanqayntu waxay tilmaamaysaa su'aal sahlan. xogta ugu muhiimsan mararka qaar waa mid tusaale u ah baa layidhi in mas-uulka uu joogo xafiiskiisa lana helo saacadaha shaqada, taasoo ay u muuqdeen sirdoonka dowladda Iran iyo cidda qaabilsan xogta madaxdu in ay ku fashilmeen. halyeyga sirdoonka mise xaqiiqada saxda ah warbixintu waxay sheegaysaa in howlgallada sirdoonka badankood ay ku dhisan yihiin habab caadi ah, saameyn maskaxeed oo lagu sameeyo baa layidhi ay psychological impact waxa la yidhaahdo oo ay ka muhiimsan tahay natiijada militariga. in madaxda la fahmo maskaxiyan, in howlgal militari la qaado fikirkooda in la fahmo oo maskaxdooda la saameeyo, ama in burburinta awoodda ay noqon karta baa layidhi hub nafsi ah oo lagu cabsi geliya cadowga, taas oo dowladda Iran markii horeba ay dhistay sirdoonkooda inay yihiin mid wax walba ka horeeya. qiyaalkaasi oo run loo bedelay ayaa iminka looga shaqaysanayaa waddanka Iran. qodobada ugu muhiimsan ee warbixintu ay xustaa waxaa ka mid ah guulaha sirdoonka badankood waxay ku yimaadaan dadka gudaha ka shaqaynaya. dad leh dana gaar ah ama niyad jab ayaa noqon karaya albaabka laga galo in tallaabooyinka la qaado. tanina waxay ka muhiimsan tahay tiknoolajiyadda sare ee hadda la isticmaalayo. tusaale taariikheed ayaa dib loo dheegtay. sanadkii 2018 Mossad ayaa lagu sheegay in ay ka xaday kumanaan xogo oo la xiriira macluumaadka mashruuca nuclearka ee dowladda Iran. waxaa sidoo kale howlgalka uu ka dhacay gudaha Tehran uu noqday mid durbadiiba qalqalgeliyay. waxaa la arkay mid ka mid ah filashada ugu waaweyn ee Iran inay hoos u dhacday, laakiin falanqayntu waxay tilmaamaysaa in howlgalka uusan suuragal noqon lahayn haddii aysan jiri lahayn taageero gudaha ah, taasoo ka dhigan in la dhaxgalay oo la jajabiyey unugyada sirdoonka ee waddanka Iran oo laga adkaaday. mucjisooyinka sirdoonka ayaa aan ahayn wax ka baxsan caqliga caadiga ah oo qof bini aadan oo fakaray ayaa lagu dhisay dhammaan humaagyada sirdoonka ee dowladda Iran loo isticmaalay, balse waxay yihiin baa layidhi isku darka xog fudud, qaladaad gudaha ah oo jira iyo howlgal si wada jira loo qorsheeyay in lagu isticmaalay weeraradii dhacay oo dhan. isla markaana sheekada awoodaha propagandada ama abuuritaanka sheekooyinka dadka maskaxdooda lagu rogo ay mararka qaar ka weyn tahay awoodaha dhabta ah. tani waxay dhalisay madaxda Iran in maskaxiyan la saameeyay, guud ahaanna amnigoodii la qalqalgeliyay, xogtana ay noqotay mid si fudud loo helay. khiyaartayna la socotay aad baad u mahadsantihiin. waa Cabdicasiis Barrow iyo barnaamijka faaqidaada wararka dagaalka ee gobolka Bariga Dhexe. wuu sii socon doonaa wararkeenna, waynu sii eegi doonaa xogaha soo kordhaya ee ku soo biiray YouTube-ka oo subscribe saara.